Kaabis hurdo oo caadi ah ayaa la xiriirta halis Wadne-Joojin. Cilmi-baaris cusub ayaa muujisay walaac ku saabsan isticmaalka muddada dheer ee melatonin Kaabis caan ah oo loo isticmaalo hurdo. Daraasad hordhac ah oo aan weli la eegaynin cilmi ahaan peer reviewed ayaa lagu ogaaday in dadka loo qoray melatonin muddo ka badan 1 sano ay u nugul yihiin. 9 ee halis saraysa oo Wadne-Joojin ah muddo 5 sano gudahood 2 jibbaar halis dhimasho guud marka loo eego kuwa aan isticmaalin melatonin. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan ka wadan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Melatonin waa maxay? Waa hormoon dabiici ah oo maskaxdu soo saarto si ay u xakamayso saacada gudaha ee jirka. Kaabista melatonin waxay caawisaa dadka qaar in ay seexdaan si fudud. Waxaa laga helaa farmashiyeyaasha iyada oo aan loo baahnayn dhakhtar, taasoo keenta in dad badan ay si madax bannaan u isticmaalaan. Waxyaabaha la ogaaday: dadka isticmaalay melatonin muddo ka badan 1 sano waxay ahaayeen 3-5 jeer u nugul in la dhigo isbitaalka sababo la xiriira Wadne-Joojin. Heerka dhimashada guud wuxuu ka kacay 4.3 ilaa 7.8. Xadidaadda daraasadda. Daraasadu ma aysan weydiin ka qaybgalayaasha sida ay u isticmaaleen melatonin. Waxay ku salaysan tahay diiwaanada daawada. Tani waxay keeni kartaa khalad maadaama dadka aan loo qorin melatonin ay si madax bannaan u qaadan karaan. Aragtiyo khubaro. Kennedy liituku nadi wuxuu sheegay in melatonin laga yaabo in aysan ahayn mid aan waxyeello lahayn sida la rumaysan yahay. Carlos Ayaa oo ah madax ka tirsan ururka cudurrada hurdada ee Spain wuxuu ku baaqay in la sameeyo tijaabo cilmiyeed oo rasmi ah si loo caddeeyo badbaadada melatonin. Dhibaatooyin kale. Waxaa jiray kiisas badan oo overdose ah oo aan dhimasho lahayn oo ka dhacay carruurta Australia, taasoo keentay su'aalo ku saabsan badbaadada melatonin ee da'da yar. Gunaanad. Inkastoo melatonin loo arko mid ammaan ah muddo gaaban 1-2 bilood, cilmi-baarayaashu waxay ku baaqayaan in la sii baaro saamaynta muddada dheer. Kaabisyada dabiiciga ah sida melatonin ma aha kuwa gebi ahaanba aan halis lahayn. Daraasadan waxaa lagu soo bandhigay American Heart Association's Scientific Sessions bishii November.